بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ملك الدنيا دعالة كجوكتان ومركا لي برنامجيني أتكلم ساعتين ايرو تي في وبرنامج كيني تحناها إلا مقع بحي قلت الرؤية كتاريخيت ومانتا عندول جوجنو قيبتيسي لحية لباتنات أما لباتني اللحاد برنامج كوحا يقوم مرتيع مدن السيد علي ديرو أو جوجو مقالة مقدشو مانتا وحينو كهل دونا تاريخ دا فعوين بيشا إيلي أما إيلاتا أما إيلو مدن السيد علي والمغلسة صوماه وكو مقلايا سيفان با كو مقلايا وهجاك كسو دو ايرو تي في مركا كوباد مركا لباد waxaan doonayaa qodobka koobaad oo ah taariikhda beesha iyo waayaha ku xeeran kusoo dhawow waxay nooga sheeg taariikhda facweyn ay leedahay shad maqlay beesha kusoo dhawow waan ku dhawahay aad iyo aad baa u mahadsantahay Airo TV iyo mataqaana shaqaalaheedu waa salaamaya salaan kadib beesha aylo mataqaana oo degto gaar ahaan dalka Soomaaliya gobolka mataqaana gobolada Koonfureed oo mataqaana asal ahaan asalkeeda beesha aylo mataqaana iyo magaca aylo mataqaana dad badan aqoon-yahano far badan oo Soomaaliyeed baa mataqaana qofka meel u dhigay qofka mataqaana asigoo rabo inuu mataqaana magaca aylo micnihiisa sheego nin qof walba waxba ku sheegay laakiin xaqiiqada jirto mataqaana in badan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ma haleelin mana sheegin laakiin maanta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo aad u far badan oo mataqaana ama beesha ayla laftirkeeda oo ayada laftirkeeda aad ugu badan wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Soomaaliyeed inaan mataqaana u sheego magaca aylo iyo mataqaana sababta uu ku yimaaday magacaas uu ku baxay iyo dadka aylada sababta ay ku qaateen mataqaana run ahaantii magaca aylo mataqaana wadanka Soomaaliyeed ma aha meesha lagu sheegay ama ka baxay ama lagu bixiyay asalkiisa horta magaca aylo wuxuu ku baxay mataqaana masaajidkan hadda loo yaqaano Baytul Maqdiska markii mataqaana Nabiyullaahi Yaaqub uu dhisay alayhi salaam xiligaas masaajidkaas magiis baa waxaa la oran jiray oo mataqaana Nabiyullaahi Yaaqub uu bixiyay magaciisa ku magacaabay waa Masjidul Ayliya Masjidul Ayliya waayo masaajidkaas waxaa loo yaqaanaa Masjid Baytul Maqdis baa loo yaqaanaa Baytul Maqdis waa af Arabi waaye mataqaana Baytul Maqdis waa af Arabi laakiin Nabi Yaaqub xiligaas kuma hadli jirin luqad Arabiga kuma hadli jirin wuxuu ku hadli jiray Imraani ku hadli jiray mataqaana Imraani wuxuu mataqaana oo Masjidul Ayliya maana micnaheedu Imraanigi wuxuu noqonayaa masjid hadana mataqaana magaca hadda loogu wacay Masjidul Qudus oo masjidkii daahirsanaa oo baa u dhigantaa mataqaana hadii Arabi loo soo celiyo Imraanigaas oo xiligaas uu bixiyay Masjid Ayliya Masjidul Ayliya wuxuu asaasay Nabiyullaahi Yaaqub asiga asaasay asigoo dhisay magaca aylo baa u bixiyay oo Masjidul Ayliya waxaa qorayaan oo kutub badan oo siirada ambiyada oo mataqaana taariikhdooda ay ka sheekayso badan bay qoraan hal iyo labo ma aha qasidul anbiya ba qoro iyo kutub far badan oo taariikhda marka isla waqtigaas oo masaajidka Nabiyullaahi Yaaqub uu dhisayay waxaa la dhisayay mataqaana dadkii oo asiga isla markaas oo mataqaana asxaabtiisa kamid ahaa qof baa jiray asxaabtiisa kamid ahaa oo la oran jiray xiligaas Salam bin Haris la dhahay mataqaana magaciisa Salam bin Haris baa la dhahay oo mataqaana dhismaha ku jiray hasi ahaatee Salam ma ahan oo dad oo mataqaana isla markaas oo ajaanibkaas oo degan oo mataqaana dhulkaas oo barakaysan Qudus kama soo jeedin asiga wuxuu ahaa mataqaana qaxdaaniin buu ku soo jeeday asalkiisa qaxdaaniin waaye saddexda qaybood oo u kala baxaan qaxdaaniinta uu ku soo jeeday asqaybta wuxuu ku soo jeeday Himyar bin Saba baa ku soo jeeday fariis buu ahaa iyo mataqaana Amil bin Saba iyo mataqaana Himyar bin Saba way mataqaana kala ahaayeen iyo mataqaana dadkan Oos iyo Qasrij la dhahay iyo dadkan Yemeniyiinta asiga marka Himyar buu ahaa marka masaajidkii buu dhistis ka qayb qaatay masaajidkii markuu dhameeyay asiga marka wuxuu sameeyay inuu meel tuulo ah oo dego meel oo mataqaana tuulo buu aasaasay kadib tuuladii waxaa noqotay meel magaalo ah oo mataqaana wuxuu ku magacaabay
Eilata buu ku magacaabay Eilata asiga buu degay aruurtiisii asiga iyo wuxuu dhalay baa degeen kadib degenaanshihiisa waxaa kusoo biiray laba kooxood baa kusoo biireen koox oo reer bani Israa'iil ah iyo waxaa kusoo biiray koox oo mataqaanaa kale oo degan oo mataqaanaa jasiiradaas isla markaas jasiiradaas degan baa kusoo biirtay saddex kooxood bay noqdeen mataqaanaa magaaladii waxaa noqotay magaalada ugu weyn oo mataqaanaa oo islaamka xilligaas jiray oo loo aasaasay baa noqotay oo ay degaan baa noqotay marka waqti dheer kadib oo waqtigii isbedelay mataqaanaa magaaladii way weynaatay mataqaanaa dad badan baa mataqaanaa soo degay oo ninkii oo Sanam bin Haris fariis iyo dadkii mataqaanaa magacii aday tuulo oo mataqaanaa lagu magacaabay qabiil baa isku bedelay dadkii qaxdaaniintii oo xilligaas halkaas deganaayeen baa magaca Eilata baa loogu magacaabay marka magacii qaateen maadaama awood ayaga soo bixiyay marka hasi ahaatee magaaladii mataqaanaa muddo badan kadib nabiyaashii la soo diri jiray reer bani Israa'iil mataqaanaa lagu soo diri jiray nabi kamid ah baa dadkaas oo tuuladaas degan loo soo diray mataqaanaa nabiyullaahi Daawud baa loo soo diray oo saddexdii kooxood quraankan si fiican baa u qeexaya meelo badan baa quraanka laga sheegay saddexdaas koox oo deganaayeen oo koox oo Eila ay tahay koox reer bani Israa'iil iyo koox kale marka magaaladii nabiyullaahi Daawud baa loo soo diray dadkii waxaa loo sheegay in maalinta sabtiga aan la ugaarin karin oo kalluunkii la aadi karin oo mataqaanaa ay mamnuuc tahay maalimaha kale ay ugaarin karaan kalluunkii ay aadi karaan kalluumaysan karaan kalluumaysiga nacamti waan gartay ku soco kalluumaysigii dadkii waxay sameeyeen marka isla markaas lagu joojiyay kalluunkii mataqaanaa lagu joojiyay kalluumaysigii mataqaanaa waxay sameeyeen heelad bay sameeyeen inta maalintii kalluunkiina wuxuu noqday inuu maalintii sabtiga soo bato sida quraanka adeeyay maalimaha kale la waayo marka ayaga heelad waxay sameysteen in kalluunkii mataqaanaa oo gudud u qodaan maalinta sabtiga uu galo maalimaha kale kala soo baxaan sida hadda noo adeynayso suuradda mataqaanaa miinsaad ama acraaf aayadeeda mataqaanaa 163 baa noo adeynaysaa sheekada aan ka sheekaynayo in nimantii heelad la imaadeen kadib mataqaanaa saddexdii kooxood koox waxay tiri warnimiyow war nabiga Ilaahay baa idin sheegay waxaan idinka samaynaysiin ka jooga iska dhaafa kooxna way ka aamustay marka sidan oo quraanka noo sheegayo way ka aamustay koox labada koox marka inay kooxdii oo kalluumaysatada lagu yaqaan horta reer bani Israa'iil waaye marka labada koox la sheegay in koox Eilada waaye kooxna mataqaanaa koox kale oo la digneed waa quraanka adeynay magac laguma sheegin marka labadooda koox lama sheegin cid oo waanada bixisay iyo cid ka aamustay lama sheegin laakiin labada koox reer Eili iyo mataqaanaa reerkii kale waxaa la sheegay inaa koox waana ka bixisay kooxna ka aamustay baa la sheegay oo dadkii ultimo oo kalluumaysigii nimantii reer bani Israa'iil oo habeenkii ayagoo bedelan oo mataqaanaa oo daanjeer ay noqdeen baa mataqaanaa iyo waxyaabahaas ayagoo bedelan baa waaga u baryay la arkay sida quraanka noo adeynayo oo aayado badan ay soo arooreen marka magaca Eilo halkaas uu ku aaday mataqaanaa halkaas uu ku baxay dadkan xilligaas way ku direen xilligii mataqaanaa nabi Yaaqub bay soo bilaabtay magaca halkaas ku soo bilaabtay ilaa inta nabiyaasha nabi xilligii nabi Muuse iyo intaas oo dhan way soo jireen ilaa nabiyullaahi Muhammad ilaa haddana magaca waa la isticmaalayaa marka magacii waa sidiisa u taagan yahay ilaa jasiirada Arabta ilaa wadamo kale waayahay waan gartay marka ma waxaad leedahay yani runtii magaca xilligaas uu soo bilowday xilligii nabiyullaahi yani Daawud u yimidna sidoo kale dhismihii Baytul Maqdis oo hadda loo yaqaano ayay ka qayb qaateen markii horena waxaa tiri Eiliyaad baa la oranayay hadalku ma sidaas ah markii hore masaajidka ba nabiyullaahi Yaaqub uma bixinin Baytul Maqdis uma bixinin waxa u biyay mataqaanaa masjidul Eiliya oo u dhiganta markii Arabi loo soo celiyo oo la soo mataqaanaa fasiro oo Baytul Maqdis ba imaanaysa hadana isla markii Baytul Maqdis ba imaanaysa markii Arabi loo soo waxaas waa luqadaas waa Imraan waa masjidul Eiliya marka sidaas bay magacii sidaas baa ku baxay kutub badan baa qoraan weli waayahay marka xilli aad u fog bay ahayd marka Eila marka la leeyahay marka macna ahaan ereyga ma la macneeyay afka Imraaniga waxa uu ku noqonayaa ama afka Carabiga ama afka Soomaaliga
ayla marka ma la micneeyey madaysa wax micnaa micnihiisu waxa waaye waa daahir waay mataqaanaa waa qudus waay qudus arabiga haddii loo soo laabo waxaa u dhigantaa qudus meel oo daahirsan haddii soomaali loo soo celiyin meel nadiifsan waay masjidkii oo mataqaanaa daahirsanaa baa noqonaysa soomaali loo soo celiya sidaas waay baa u dhigantaa kelmadaas waa kelmad hadda la isticmaalo waay oo dhinaca oo mataqaanaa dhinacaas lagu isticmaalo oo imraaniga ay isticmaalaan ilaa haddarba ay isticmaalaan waay oo sideeda u taagan waay kelmadda marka sidaas baa ku baxda magacaas waayahay waxaynu usoo tallaabaynaa ama usoo gudbaynaa dhinacan soomaaliya iyo waktiga wakti dambe oo aad u fog oo xilligaa kadib wejigii labaad ayaan soo gelaynaa waayahay soomaaliya marka la yimid deegaanka ay degeen beeshan eyle ama eylo ama eylaata deegaanka ay degeen ay marka hore kusoo horreeyeen waa xaggee weeyaan soo dhawo mar kale taas intaan u gudbin taa aylata halkaas baa wax yar baan kusii darayaa dadkii mataqaana si ay mataqaana wax badan ay ugu ogaadaan wilib tuuladii baa wax kusii darayaa tuuladaas mataqaana magaaladaas oo aylata la dhahayo waxa waaye mataqaana waxaa joogi jiray nin oo mataqaana qof oo qur'aanka si fiican loogu ammaanay oo suuradan lagu magacaabo oo dad Soomaaliyeed si fiican u yaqaanaan luqmaanul hakiim waa tuuladii mataqaana magaaladii uu joogay waay oo hadda ilaa haddarna uu ku aasan yahay oo uu ku dhintay waaye oo waa tuuladii oo mataqaana 70kii nabi oo reer bani Israa'iil nimin oo soo duulay oo meesha ku dilay waay oo mataqaana qabdhiin oo soo duuleen 70 oo mataqaana 70 nabi oo hal mar lagu dilay waa tuuladaas waaye mataqaana ama magaaladaas waaye oo aylata la dhahayo 70 nabi luqmaanul hakiim oo si fiican loo yaqaano halkaas baa mataqaanaa uu ku duugan yahay mataqaanaa oo deegaankiisana ahaan jiray oo deganaa mataqaanaa oo tuugadan si fiican baa uga hadlaan markaasi ahaatee dhanka Soomaaliya markaan u soo gudubno wadanka Soomaaliya mataqaanaa beesha eylo 3 dir bay soo gashay mataqaanaa sida hadda oo taariikhda ay ku adahay 3 waqti bay soo kala gashay horta Soomaali ahaan wadanka Soomaaliyeed waa dadkii ugu soo horeeyay oo wadanka Soomaaliya deegaamiyay waaye mataqaasatan magaalada Muqdisho dad badan oo mataqaana Soomaaliyeed ay sheeganayaan lahaanshaheeda aniga lagu muuqayo oo lagu murunsan yahay mataqaana ninkii ugu horeeyay oo imaado oo familkan kamid waxa lagu magacaabo jiray mataqaana Himyar bin Saba baa imaaday magaalada Muqdisho asaa joogay hal mar magaca ku soo celi ninkaasi ninkaas waxaa la yiraahdaa Himyar baa Himyar bin Saba baa oo meeshan soo gaaray oo eylada kamid ah waaye Himyar bin Saba buu imaaday mataqaana meeshan loo yaqaan hadda buur eylo loo yaqaano iyo Muqdisho isla waqtigaas la qabtay marka la digay deegaan ahaan loo sameeyay oo loo digay taariikhda waxay sheegaysaa lagu daro tan milaadigan hadda aan tan oo milaadiga aan xisaabtano kun oo mataqaana 2022 aan xisaabtano laga reebo ku hor mataqaana 2050 sano baa la deginaa milaadiga inta ka hor maanaa xisaabtan nabi Ciise hor magaalada Muqdisho 2050 sano hadda waxaa noqonaysaa 4000 iyo mataqaana 71 sano baa noqon sida taariikhda oo ku tahay waxaa mataqaana laga helayaa taariikhda tan waxaa laga heli karaa Himyar bin Saba inuu Muqdisho hukumayo oo joogay soo hormaray kutub oo hadda si fiican Soomaalida mataqaana u isticmaalaan taariikhda Soomaalida soo koobay baa ku taala mataqaana la yiraahdo magaciisa Baqiyatul Aamal baa ku qoran mataqaana sidan tan qabiil badan Soomaaliyeed taa mataqaana uu ka sheekeynayo mataqaana oo taariikhdooda soo qaatay oo Shariif Aydruus oo Yemen qoray kutubkaas waayahay magaalada Muqdisho marka waayahay kooxdaasi waxa tiri waa kooxdii koobaad ayay labada kooxood kalena gorma yimaadeen kooxdii labaad waxay soo gaareen oo mataqaana dadkii waa silsilad waa isku xiran yihiin abtirkooda markaad fiiriso ama kutubada ay qoraan abtirsiimadooda oo aniga aan hayno waa isku xiran yihiin Himyar hadda mataqaana wixii hadda oo ay la sheegto dhan oo magac ay la wato dhan meel kasta adduunka ka joogaan ayaga asiga abtirtiis waa ina ay asiga maraan bay asiga ay marayaan Himyar asiga ay marayaan kooxdii kale waxay imaatay 3 gur dadka loo yaqaano waayde 3 gur waxa si fiican loo yaqaan Soomaalida oo qabiilo badan Soomaaliyeed
ay ku farcameen mataqaana qabiilo badan Soomaaliyeed oo u aftirsadaan oo mataqaana u nasab sheegtaan saddexdii gure oo mataqaana ba dib dambadan soo gaaray mataqaana ayagoo sidaas loo degan oo dadkii degan odayaashii ay soo gaareen mataqaana dib dambe oo wadankii markaas Soomaaliyeed oo asigana oo hiligaas waxa ku bilaabtay himyar wuxuu ahaa nin boqor buu ahaa Muqdisho oo joogay oo mataqaana boqornimo oo mataqaana hasaanadeeda watay oo mataqaana sida ku hukumay oo muddo 400 sano uu umrigiisa gaaray adiga hukuumadda meesha ku ay 400 sano umrigiisa jiray waan gartay hal mar halkan ka dhax galoodo raali ah saddexda gurre ayaa tiri marka ma saddexda gurrana mise waa saddexda gurre saddex gurre way saddex gurre marka saddexda gurre marka iyagu marka ma jilib ama beelaha ay la kamid aha mise waa qayb hoose bal dadka si ay u fahmaan horta magac ayla waa halkaas buu jiraa nin qof hadda u soo dhow ma jirto laakiin dadka meel kasta ay joogaan waa haastaan waxa u malaysaa hadda inuu jiro baa u malaysaa si loo haas magac loogu dhigan yahay ma fahantaad magac halkaas aan ku soo sheegay oo taariikhdiis nayliga nawda uu jiraa mataqaana laakiin dadkii magac kan ayaga hadda leeyin ma sheegan waxa sheegan magac ayla ba sheegtaan magac kan usub ayaga hadda u dhishteen oo qabiilaadka maba xusaan meel kasta ay joogaan haddii jasiirada al-arab ay tahay haddii Soomaali ay tahay hadda isbiin waa degan yihiin dadkan ehelada waxa degan yihiin wadamo badan bay degan yihiin isla magacaas baa sheegtaan magacaas ma foga meel fog buu jiraa laakiin dadkii mataqaana saddexdii guro mataqaana waa dad oo halkaas ku soo farcamay way oo magac ehl usub una sab sheegto mataqaana qabiilad ayaga marka saddexda gure bas Soomaaliya ma degan yihiin hadda dadka jooga Soomaaliya waa ayaga way saddexdii gur dadkooda way dadka Soomaaliya degan dhanba mataqaana waayahay waa saddexda gur waan gartay kooxda saddexaad iyagana goorma yimaadeen maxaa la oranayay kooxdii saddexaad waxay imaadeen mataqaana ayagana sidoo kale mataqaana saddexdii gur kadib mataqaana ba ayagana dib dambe oo ayagana dan isla fara'i ba yimaadeen mataqaana oo mataqaana ba soo galeen dib dambe oo ayagana waxay ka soo galeen dadkan mataqaana waa socdaal dheer kadib horta sidoodaba oo dadka soo galayeen dib u soo galayeen mataqaana dad waxa soo galay hiligi ximyar ba isla farci waaye dib dambe waxa soo galeen kuwii ugu dambeeyay nabiilay Ibrahim hiligi bay soo galeen oo nin la yiraahdo Dr. Nasr miya lagu ordi jiray halkaas jasiirada Arab aagasnan dadka ay ku soo qaxeen dadka Soomaalida badan oo isdhaxgalsan kuwa Arab sheeganayo kuwa wax kala sheeganayo oo isku yaacsan hiligaas ba dadka mataqaana isu soo dhaxgaleen mataqaana hiligaas ba soo galeen kuwii kale guryaasha ugu dambeeyay marka guryaasha ayaga ugu dambeeyay waayahay mudane Said Ali barnaamijka waa barnaamij aad u xiiso badan wax badan u baahan dadku inay ka fahmaan qaybaheena dambana aan ku faahfaahin doono sidoo magaca ku bilowday saldanadan Ximyar bin Saba oo aad tiri lafteeda xamar bay ka jirtay beelo badan oo kale oo Soomaaliyeed iyaguna waa aaminsan yihiin inay qayb ka ahaayeen saldanada qaybaheena dambaanu kaga hadli doonaa waxaynu u gudbaynaa dadkii caanka ahaa beelahan ama beeshan aylata ka soo jeeday oo xilligii dabatada ama ugaaratada la ahaa sida Geedibabo iyo Dibkabalo iyo Fayla Aro iyo raggaasi maxay ahaayeen ma boqoray ahaayeen ma geesiyaal abanduuliyaal bay ahaayeen xageysa ka talinayeen waa boqoradaas way jireen way boqoray ahaayeen wadanka mataqaana oo dad xukumi jiray ayaga looga dambeyn jiray hatta dadka ayaga deegaameeyeen goboladan mataqaana aad u jeeda sida shabeellada hoose shabeellada bay Bakool ayaga mataqaana xukumi jiray qof oo mataqaana ayaga ogeen ma soo degi jirin qofka ayaga dejiyaan ba deganaan jiray marka boqorkii ugu dambeeyo Geedibabo had si fiican magaciisa loo yaqaano buu ahaa boqoradii ku sii xigtay iyadan salaamo baa la aan way Soomaalida oo dhan baa yaqaanaan boqorada magaceeda ku soo celi boqoradii ugu dambeysay Geedibabo mataqaana kadib salaamo baa lahay salaamo Maxamed baa lahay salaamo Naasdheer baa u yaqaanaan Soomaalida ma faantay waan gartay marka ayada waxa waaye boqorkan oo Geedibabo
boqoray kusii horeen sidii Faylaaro iyo Dibkabaalo hortiisay ahaayeen asiga had taariikh 700 sano baa sheegayaan dadka taariikhahanada oo beeshan u dhastay ulmaawdiinka 700 sano baa ku soo wareegtay waqtigiisa ilaa hadda laga joogo mataqaana boqorkeeda Abaabo waa boqorkii ugu mataqaana xukunkiisana aad baa u kulaa marka mataqaana hadda waxa way Soomaalida inta badan bad mataqaana oo qabiiladka kale oo deganaa xiligaas oo la soo dajiyay hadda waa joogan dadkaas mataqaana Soomaalida ilaa had farci ba taagan boqorka deegaanadan iyo dadkan degan in asiga sameeyay mataqaana beesh ilo ilaa mataqaana hadda sida oo Johor oo kale Johor Eyl baa la magaceeda Buur Eyl oo kale xaruntii ugu weyn oo boqorka uu deganaa Buur Eyl baa oo mataqaana dadka ciidamadiisa iyo lagu agaasimi jiray oo lagu tuulin jiray Buur Eyl way mataqaana meesha asiga oo ciidanka oo lagu maamulay asiga wuxuu deganaa buurtan oo la yiraahdo Buur Hakabo dusheeda uu deganaa asiga meesha oo hoygiisa halkaas uu ahaa laakiin ciidanka oo iyo mataqaana siraha iyo waxyaabaas oo boqortooyada oo mataqaana isticmaasho iyo mataqaana qaabkii oo loo maamulayo waxa lagu maamuli jiray buurkeeda asiga marka intaan 40 kilomitir baa u jirtaa labada buur dhacdood hadda markii la cabiray 40 kilomitir baa isu jiraan marka boqorkaas Soomaalida si fiican u taqaanaa marka dad badan asahada wuxuu dhalay waa qabiil dhan way waxa asiga kaligiis wuxuu dhalay qabiil hal qabiil dhan way mataqaana oo mataqaana loo yaqaan hadda qabiilkaas oo hawar garba lahaa islaan garba lagu dhalay ayaarkaas ay u dhashay islaan garba raalli ahow waxa tiri hawar garaal yaa miyaa tiri hawar garba lahaa qabiilkaas marka hooyadood waa garra miya hooyadood waa garra way hooyadood waa garra waan gartay si fiican ayaa ka soco marka waxa ka sii higay mataqaana asiga dagaal buu ku dhintay boqorkaas sidiisaba dagaal buu ku dhintay hadda mataqaana gabdhihiisa hadda iyo wiilashiisa magaalooyin mataqaana oo Soomaalida kamid ah ama meel oo mataqaana sida oo hadda Afgooy oo kale iyo tuulooyin magaalooyin oo far badan waa mataqaana waxa lagu magacaabaa wiilashiisa iyo gabdhihiisa baa lagu magacaabaa asiga dhalay oo mataqaana oo mataqaana magacyadaas hadda wataan sida hadda Afgooy sida taariikhdu ku caddayo waa gabar asiga dhalay way mataqaana waxa tuulooyin kale oo dhinacaas boqol emails ku yaalan oo ayagana magac leh waa aruurtiisu way martay gabar kasta asiga dhalay tuulo ba mataqaana ama magaalo baa loogu magac daraa hadeer laakiin dadka Soomaalida iyo hataa dadka u dhashtay in badan taariikhda kama warhayaan okay halka hadaan ka dhax galo Afgooye waxa tiri boqorkaasi gabadhiisii bay ahayd marka magaalooyin kale ama tuulooyin kalena wiilashiisii iyo gabdhihiisii baa loogu magac daray marka kuwa kale ma la heli karaa magacdooda hadda tan oo hadda mataqaana magacaan oo mataqaana la yiraahdo Marko mataqaana sidoo kale Marko gabar uu dhalay baa ahayd mataqaana ninkaas boqorkaas sheegeen hor magacii kale marka oo magacyadii isbeddelay laakiin marka oo magaalada hadda la yiraahdo magac oo gabadhiis baa lagu sheegay Afgooy sidoo kale iyo tuulooyin kale oo mataqaana oo baay iyo boqol ku tirsan oo meel hadda oo la yiraahdo Guraamay la dhahay Guraamay geedi baa aan way baay ba ku taala oo Soomaalida oo mataqaana degan baay oo si fiican u yaqaanaan waayahay marka Guraamay geedi waayahay waan ka soconaa qaybihii dambe barnaamijkeena ayaanu ku soo dhownahay waxaan rabaa marka eray bixino ayaa halka ka soo baxay Sayid Cali oo rabaa bal in hadii aan san u fahmay ay tahay in aynu bulshadana la wadaagno afka mayga waad ku hadashaa Soomaha si wanaagsan afka mayga waa ku hadlahaa waayahay aylaata ereyga hadda aylaata afka mayga wuxuu ila muuqdaa aylaata muxuu lahaa oo kale aylaata ama wuxuu lahaa yani marka afka mayga af Soomaaliga marka maya maxaa tiri loo kala saaro aylaata aniga waxay halkan marka aan yani garaadkayga wuxuu siinayaa inay la micno tahay ayuu lahaa ama muxuu lahaa soo garan maysid
si fiican halkan markaa erey kale oo kaa u dhow oo jamac aha jira oo ah waylataa eeg hadda waylataa waxay lahaayeen ama waxay yidhaahdeen waylataa marka afkeenna laftiisa ma la oran karaa afka mayga laftiisu waa af lacamtiye markii uu la soo guuray oo uu afkaa watay oo magacan lafteeda uu xaggaasi adigu ma ka eegtay dhinaca horta waxa waaye magaca intaan kuu sheegay waaye hataa mataqaanaa oo mataqaanaa lagu xusay laftirkiisa qur'aanka kariimka ee qofka mataqaanaa qur'aanka kariimka baa lagu soo xusay sharxiisa bay ku taala aayadan oo suuratu mataqaanaa suuratul acraaf miisaad aayadda 163 qofkii raw sharaxeeda haddaa aylata meesha ku qornaan waaye waxa aan sheegayo maba jirba kutubo badanaa jiraan kutubka qur'aanka qofka haddii ku qanci waayo wax kale uu ku qancayo ma jirto mataqaana magacan soomaali iyo asiga shuqulba iskuma laha magacan maadaba af soomaali iyo asiga wax oo xiriir u dhahay ma jiraan okay waa yahay waxaa suurtagala kolley qaybaha erayadan ama erey bixinta dhinaca linguistiga ama cilmi afeedka xiriir baa halkaani iyo muuqda inay ka dhexeeyaan qaybaheena dambaanu ku eegi doonaa gabagabadii saldanadaasi ama boqortooyadaasi adoo soo koobayo maxaa burburiyey maxayse tahay hadda waxa aad dadka u sheegaysid beesha ku abtirsada soo dhawo mar kale wallahi waxa waaye beesha aylo mataqaanaa saldanadeeda waxaa ugu dambeysay boqor geeda abaabow iyo boqoradii salaamo oo mataqaanaa qabiilo badan oo hadda qabiil oo mataqaanaa aad mataqaanaa soomaalida magac iyo mataqaanaa martabo ugu leh oo jiro oo aad caan mataqaanaa u yahay magaciisa oo qabiilada Soomaaliyeed ka mid ah oo mataqaanaa saldanada oo salaama naasdheer gurigeeda lagu soo barbaariyay lagu soo weyneeyay mataqaanaa oo lagu soo koriyay ba hadda waxa uu noqday qabiil weyn oo aad Soomaalida oo loo yaqaan hataa mataqaanaa dadka Soomaaliyeed oo aad u yaqaanaan mataqaanaa magaalada Muqdisho noqoto mataqaanaa waxaad mataqaanaa dadka Soomaaliyeed mataqaanaa way la socdaan way og yihiin hasi ahaatee qabiilka inuu weyn yahay mataqaanaa kan oo iska daa kan jasiiratul arab wadanka dhaxdiisa qabiil oo had ka weyn ama la soo istaagi karo ma jirto qabiilad badan dad badan oo guryahooda ku soo koray ba maanta qabiil hada qabiil waaweyn sheeganayo qabiil hibil oo la inkari karin mataqaanaa oo muran ku jirin marka dadka oo qaldanada beesh mataqaanaa aylo wax walba oo adduunka jiro oo meel buu ku eegayarto hadii boqortooyo noqoto hadii dawladnimo noqoto mataqaanaa qof wiligiis adduunka loo sameeyo oo iska saarnaanayo oo boqor ahaanayo ma jiraan wax walba xukun kastana meel buu ku eegyahay ma fahamtay marka heligaas maanta hadda dadkii guryahooda ka soo koreen oo guryahooda oo mataqaanaa joogi jireen oo la soo koriyay ba maanta mataqaanaa wadankan ayaga xukumayo ayaga haasto hadda wadanka Soomaaliyeed ayaga u talinayo waa dadkii ayaga guryahooda ka soo koreen way maanta mataqaanaa ilaahay agtiisna suurtagal kuma noqon in mataqaanaa saldanadii ilaa himyar lagu soo bilaabo ilaa geeda abaabow ilaa mataqaanaa salaama boqoradii salaama mataqaanaa ilaa inta waqtigan la joogo 2021 inay soo jirto saldanada mataqaanaa ilaahay agtiis kama suurtagelin laakiin haddeer mataqaanaa dadkii oo mataqaanaa reer aylo oo gaar ahaan deegaanadooda hadda gobolka Shabeellada hoos dhammaan gib ahaanba way degaan tuulo oo hadda oo beesha aylo oo loogu badan yahay mataqaanaa way yartahay ayaga u badan ama kala barbar way qaasatan haddana baay iyo boqol mataqaanaa buur ayl aan waaye iyada kali buur ayl mataqaanaa deegaankii boqortooyada waaye hasi ahaatee deegaano badan Soomaaliyeed oo mataqaanaa oo markii hore oo qabiilad badan ba boqortooyo soo mareen oo Soomaaliyeed oo intaan dhaxda 500 sano ilaa 700 sano ilaa hadda boqortooyo ba soo jirtay ayl ma dad badan jiray boqortooyo soo noqday dib dambe markaasi ahaatee mataqaanaa boqortooyadii mataqaanaa reer aylo oo mataqaanaa oo waqtigaas jirtay mataqaanaa waa burburtay mataqaanaa laakiin deegaanadoodii iyo magacyadoodii iyo meeshii boqortooyada ahaan jirtay ma burburin deegaanadooda oo xilligaas boqortooyada ahayd sideeda u dhisan yihiin mataqaanaa dadkiina sidaas oo xilligaas boqortooyada jirtay waxaa lagu ilaalinaya meesha deegaanka buur ayl iyo tuulooyin oo ugu yaraan mataqaanaa 300 gaaray oo u gadaaman buurta agagaarkeeda
eylo unba degineed dadka oo mataqaana lasoo dejinayo looma soo dhaweyn jirin waa laga ilaalin jiray meeshaas inay soo dhex galaan meelaha kale la dejin jiray marka ilaa hadda deegaankiisaas ahaa cid kale ma degan ayaga unba degan mataqaana meesha dadka laga ilaalin jiray hadda Soomaalida waa isdhax gashay tuul kasta oo ama deegaan kasta meeshii boqortooyo ku jirtay dadkoo dhan waa isku dhaayaan mataqaana ma kala garanayso maana dadka dhan waa isku milmeen ma kala garanayso mataqaana deegaanka iskala iyo kii aan lahayn ma kala garanayso laakiin deegaankaas oo boqortooyada sideeda way dadkii oo sidii looga ilaalin jiray ilaa hadda qof ku darmay laakiin deegaanadii kale oo mataqaana oo meeshaas boqortooyada madax banaana oo mataqaana banaanka jiray oo Zayladan ay degneed waa la dhaxgalay laakiin meeshii sirtii boqortooyada oo iyo hogaankii boqortooyada lagu haan jiray hadda nafar kale ma degana mataqaana ilaa hadda ayaga degan bas wayahay barnaamijka waan soo gabagabeynaa hal minute baaqaad u dirayso beesha Eyle maxay tahay soo dhawow beesha Eyle waxaan u dirayaa baaq aan u diray waxa waaye mataqaana hadda waa isbedelay wadanka wuxuu ku dhisan yahay qabiil buu ku dhisan yahay aniga beesha Eyle waxaan leeyahay tir ahaan wadanka qof ugu badan maba jirtaba hadii la soo tirko waayo qabiilo badan baa idinku soo abtirsado oo mataqaana aad u far badan baa idinku soo abtirsado magay Eyle oo mataqaana ay ku soo abtirsadaan ayagana xaqiiqsan yihiin marka beesha Eyle waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan inay mid ahaadaan mataqaana boqortooyadii soo jirtay waxa lagu hayay midnin baa lagu soo xukumayay iyo wada jir iyo wada tashi iyo mataqaana aan mataqaana lagu soo hogaamin jiray marka waxaan leeyahay haddeer mataqaana beeshii Eyle oo mataqaana oo maanta wadanka Soomaaliya mas'uuliyadeeda waxa gacanta ku haya dadkii iyada soo korisay oo guryahooda ka soo koreen oo la yaqaan hebel ayagana soo kiin maanta mataqaana xuquuq fara badan oo dawladda federaalka ah way ka maqan tahay koonfur galbeed wax ayaga u qalmaan u qalmin bay ku haystaan waayo mataqaana maanta dadkii ayaga keeneen wadanka soo dejiyeen baa hogaankii hayay dadkii oo daraad koriyay oo guryihii mataqaana lagu soo barbaariyay iyo qabiilkii soo barbaariyay qabiilka soo dhigayna isma laha dadkaana maanta wax baa idinka dhahay iyo ariir oo mar hore idinka dhahay iyo mataqaana waxaas mataqaana ma jirto marka waxaan leeyahay xuquuqdeena dhacsata dawladda federaalka hadda waxa waaye boqortooyo waa laga baxay waxaa jirta dawladnimada ka qayb qaata siyaasadda mataqaana wixii idinka maqana soo noqsado waxaad haysataana qof fiican u dhiibto oo wax idin qabto oo deegaanadiina dhiso oo midnimadiina ka shaqeeya taas baan u dirayaa waayahay aad baad mahadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii guuldarrooyinka taariikheed qaybtii 26aad maantana aan kaga hadlaynay taariikhda qayb ka mid ah beesha Eyle ama Eylata ama Eylo martina uu nagu ahaa mudane Sayid Cali Derow oo jooga magaalada Muqdisho wixii taliya tusaale ah cid allaal cid doonaysa inay qayb ka noqoto barnaamijka guuldarrooyinka taariikheed iyo arrimaha ku gadaaman waxaad inoogu soo hagaajin karaysaa ciwaankeena airotv@gmail.com Sayid Cali aad baan ku salaamay saaxiib salaamullahi